بسم الله الرحمن الرحيم وأنا محمد عبد الرشيد موسى وكسو جيديني عشر كان إقراء education program ولا ليال وعشرة امتحانها سيدا هراي إذا شغني عشر كاني وحو كل ما يهي أما كل عشر كان هران سوق هذا إني عشرة هراي لبعض عشرة وجودن بيسي أتم وحو أتم ككومية وتان سوق هذا إني ككومية إلكترون نيوترون أتم كجديس وحكوشير إلكترون نيوترونس أم بروتونس waxaan isla garanay electrons inay wataan calaamada negative-ka ah protons kana ay wataan positive neutrons kana aysan wadan wax calaamada haddaba si casharadeenna dambe ugu gudubno mostly waxaan rabnaa inaan structureska iyo wax la yiraahdo compoundska iyo waxa la yiraahdaa qaabka bondingka ay u sameeyaan ionic bonding iyo covalent bonding waxaa muhiim inaan wax ka fahanno periodic table-ka katala ahaan periodic table-ka qofka ardayga ah ee danaynaya chemistry inuu heer fiican ka gaaro waxa haboon inuu xifdiyo content-ka elementi ugu horeeya content-ka elementi ugu horeeya waa content-ka elementi oo loogu isticmaalka badan yahay markii la sameynayo equationska ama reactionska falgalka chemical haddaba waa maxay periodic table maxaan ku qeexnaa periodic table waxaan ku qeexaynaa tabular form waa qaab table xariiqimo wax loo sameeyay kaasoo lagu arrange gareeyay macnaheedu English hadda aan dhahan waxay noqonaysaa periodic table is a tabular arrangement of the chemical elements ordered by their atomic number ayadoo loo eegayo atomic number-kooda 1 2 3 4 5 qaabkaas loo arrange gareeyay waana tabular form waa xariiqimahaas la sameeyay oo la gelgeliyay elements chemical elementski ayadoo la tix raacayo waxa la yiraahdo atomic number-ka ay wataan kan 1 ka ah waa laga bilaabay 2 baa lagu xijiyay 3 gi halkan aad saa uga jeedid hydrogen waa 1 helium waa 2 lithium waa 3 beryllium waa 4 boron waa 5 carbon waa 6 nitrogen 7 oxygen 8 like this qaabkaas macnaheedu loogu habeeyay okay elementiska leh habdhaqanka siman waxa la geliyay hal line baa la geliyay tusaale ahaan ase grouping-ka waa idin sheegi doonaa iyo qaab halkan taxanayaashan 1 ilaa 7 ka ah 1 ilaa 7 ka taxanayaashan ah waxa weeyaan waxa la yiraahdaa periods 7 periods uu leeyahay waxa la yiraahdo periodic table-ka halka kore oo 1 ilaa 18 kana waa groups or waxaan dhihi karnaa families so column-kaas like haddaan u nimaano group-kan oo la yiraahdo waxa loo yaqaano isheg halides or halogen groups halogenskaas waxay leeyihiin similar behavior habdhaqan siman ayagoo dhan waxay ka sameeyeen hal habdhaqan hadday noqon lahayd chemical reaction-ka hadday noqon lahayd physical property-ga iyo hadday noqon lahayd waxa weeyaan valence shell-kooda ugu sareeya okay taa haddaan ka nimaano rowgan 1 to 7 are called periods iyo column-kan sare vertical column-kan waxa asna loo yaqaanaa groups or families okay hadda halkaas uga jeedid waxa la yiraahdo carbon group boron family carbon family so group waxa weeyaan 14 and group 13 and group 14 okay maxaa kaloo meesha ku jira so waxa muhiim ah horta inaad ogaatid wax marka dhiganaysid waxaan yaa curiyay yaa keenay periodic table-kii ugu horeeyay recognizer oo la isticmaalo waxa 1869-kii keenay Russian chemist baa publish gareeyay waxa lagu magacaabi jiray Dmitry Mendeleev ninkii ugu horeeyay ee publish gareeyay periodic table xilligan wuxuu ahaa 1869 okay marka maxaan rabnaa inaan ka ogaano sababta concept-ga aan hadda rabay inaan idin soo gudbiyo ee periodic table-ka si aad wax badan hadhow uga fahantaan 94 laga soo bilaabo 1 up to 94 halkaan 94 ku jira waxa weeyaan naturally waxay u muuqdaan waxay u soo daahiraan ama laga helaa nature-ka okay all waxa weeyaan 118 elementi baa ku jira periodic table so 1 to 94
they occur naturally waxay usoo daahiraan ama laga helaa ama waxa weeyaan qaab nature ah baa loo helaa 94 ilaa 118 94 ilaa 118 elementska inta u dhaxaysana waxa weeyaan waa scientifically in laboratory waxa lagu sameeyaa laboratory bini aadanka sameeya okay maxaa halkaa ku xiga waxa loo qaybiyay saddex qaybood sida halkan ay kaga muuqata metallis non-metallis iyo metalloids so mid walba saan uga fahanno metalliska are generally shiny highly conducting solids metalliska waxa weeyaan crystallis oo wax adag oo fadhiya waa shiny way dhalaalayaan highly conducting waxa weeyaan si aad u sarreysa ayay electroniga usoo qabsanayaan si aad u sarreysa waxay usoo qabsanayaan electriga u gudbiyaan haddii bir metal aad dhinacaan afkaan electric u saartid xagga aad qabatid waxay si fudud u gudbinaysaa electrigi okay non-metalliski majority of non-metalliska are colored or colorless weeye waa color bay leeyihiin ama waa colorless mostly gaseska ayaa u badan noble gaseska oo kale okay in between metallis and non-metalliska waxaa ku jira metalloids which have intermediate or mixed properties waxay leeyihiin habdhaqan ama dabeecad waxa la yiraahdaa ama sifooyin u dhaxeeya metalliska iyo non-metalliska ama waxay leeyihiin sifooyin isku jira qayb ay ka soo qaateen qayb ah metalliska iyo qayb non-metalliska ah walaalayaal casharkayga caawa wuxuu ku eegyahay intaa insha Allah casharadana kale hore u sii wadi doonaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.